السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له صوماليات وإذن سلامي. الحمد لله إذن كانوا أي في عنتين أنا قلنا الحمد لله وفي عنها إذن كان السيدة سكلا يعني دي رجينا يا إلهي بما هذا إسكلا إسكسون نقشة كلا إن شاء الله بريها ومشغولة المهي بأسكولو دي حران مركا وحاواي بدا بيس إلهي نوض فضي دمانتين قفوا البوحو ربو إلهي هاسيو marka insha Allah maanta waxa idin wadaa insha Allah topic kale yani ka bala qaadi kaas laakiin mid ka soo horay aan raba inaan sheego oo iga soo codsaday oo walaalo igu qaali ah ee iga soo codsadeen in aan ka hadlo marka soo sideena insha Allah topic-geena sidaas ayuu noqonayaa kuwa kale insha Allah gadaal ayaan u dhigi doonaa maanta waxaan ka hadlayaa haduu Ilaahay yiraa waxaan ka hadlayaa gabdhaha supermarket waxa lagu dhahay gabdhaha supermarket ana ka soo hadal maadaama gabdhihii kale oo xaasaska ah oo wiilishi iyo gabdhihii isqabin aad ka soo hadashay faa'iidada anigana waxaan u baahanay baa lagu dhahay supermarket waxa way gabdhaha aabaha iyo hooyada ilmaha oo ninka uu ka maqan yahay waxa dhicin kara ninka inuu ka dhintay waxa dhici karta ninka inuu jeel ku jiro waxa dhici karta inuu ka tagiyo banaa kale iska raacay marka qayb badan waa uu ninka kaaga tagi kara oo yani u weyn kartaa ilmaha sayta aad u korin kartaa kaliya gabdhahaas waxaan leenahay single mother ma dhihin waa super mom waa because waxay ku jiraan laba boss ay qaateen waayo waxa ila dareemi karta gabadha hadda ilmaha inta ku korinayso qurbaha oo ninkeeda uu jooga one day ama hal bil oo ninkaada intuu ka tago uu aada ama familkiisa ama hooyadiis ama aabihiis ama wadanka intuu ku noqdo dhaw soo fiirinaya you can imagine ama gabdhaha ayagaba oo taraaglayaasha ee nimanka taraaga ka aadaan oo ilmaha yaryar haystaan oo ayaga laga rabo inay iskuul ka soo qaadaan oo ayaga laga rabo waxaan ku leeyahay inay geeyaan iskuulkii isbitaalkii inay geeyaan guriga cuntadiisii ee waxaan ku leeyahay kaas tahay ayaga marka kuwaan waxa u dheer shaqadii meeshii aabihii ilaa kan korowga kaaga soo shaqeeyo lacagta biilkii wixii uu ka bixinayaaba laakiin adigu waxa laga sugayaa biilkii ilmaha the same time ina u noqotid ma taqaana meeshii hooyada ina ku jirtid iskuulkii waa kaliya isbitaalkii waa kaliya guriga waa kaliya ilaahay baa kula jiro laakiin kaliya ma ilaahay baa saas kula taagan meel walbaba ilaahay baa saas u haysatiin insha Allah dhamaanteen ilaahay baan haysanaa waxaan ku leeyahay marka waan kula feel galeynaa dhamaantiin wallahi waan ila feel galeynaa in that imagine that bilshaas ama odiga uu ka maqan yahay yani sida aad odigaasayto waxyaabaha uu ku haayay aad u dareemaysid gabadha bal ka waran habeen iyo maalin saa u taagan oo gabdhahaas ilmahaas korinayso qaar waxaa jirta ilmaha gabdhaha aan hooyo haysanin qaar waxay jirta hooyooyinkooda ninkii markuu tagay hooyooyinkooda ku fakadeen alxamdulillah dhaha kuwaas waxa waaye waa kun jeer in alxamdulillah ku dhahdeen because gabdho kale oo iyagana waxaa jiraan hooyo aan haysanin walaal aan haysanin qof haystaan male ninkina markuu 6 ama 7 markuu ka daadiyo ka dhaqaajiyo oo waliba isku xigaan oo isku nugnug baa waxa lagu dhahay have a nice day marka waa laga baxaya waxa soo dhan insha Allah waa laga baxaa waa everything any dib oo alla ku soo qoro in la dhiilgareysid wax muddo yara ku jiraysa Ilaahay uu ka bixina one day waxayna ku noqonaysaa experience waxay ku noqonaysaa strong ka qaade very strong ka qaadaysa wallahi billaah waxaad qaadaysaa strong inaad noqoto wax ku soo celinaya male marka waxa laga rabaa gabdhahaasayto maadaama liga codsaday ligu dhahay ma taqaana anagana inoo keen ina ayagana ma taqaana ayagana u keeno waaye maadaama ayagana gabdhihii iyo wiilashii aan ka soo hadlay ayagana waxay leeyihiin nolol gabdho badan ay jiraan oo super mama oo waxaan ku leeyahay ilmahooda korsanaya gabdhahaasayto waxaan u hayaa sharaf iyo cidid wallahi oo bilow tallahi gabdhahaasi waa very strong way naga very strong yihiin ana wadaadada ma taqaana guriga inoo joogaan wallahi strong yihiin cidna kuma tashtaan qof aan alla ahayn kuma tashtaan waa very strong ilmahooda u istaageen marka gabdhahaas waxa laga rabaa iga aqli badan
iga ID weyn oo ayaga maasha Allah iga strong kasan aniga maanta inay la hadlaayo marka waxyaabo yar ayaan ugu daraaya maadaama la dhahay anigana ID inoo keen marka tii ilaahay fahansiin way fahansantahay taan fahansan insha Allah halkaas ka qaado waxay yani aqligayga yar wuxuu ileeyahay ayaan mataqaanaa ayaan inta uu faa'iideynaya gabdhaheena macaan waxaan leeyahay marka aad tahay super mom horta waxaa laga rabaa number 1 horta inaad ilaahay baridid number 1 inaad ilaahay baridid dhammaantan ilaahay waa baryeena kulligeen ilaahay baan baryeena kulligeen ilaahay baan noo wada maqan laakiin ha iloobina ilaahay inaad baridid number 1 waqti in aad yeelatiin gabdhow ama super mom ahaada ama super mom ha ahaanin in aad waqti aad ilaahaygaada kula sheekaysan kartid waqtiga adiga kuu fudud ood ilaahayga la sheekaysan kartid because ilaahay u sheega taladaada waxyaabaha aad dareemaysa ilaahay u sheego ilaahay kuma dhahaayo tan baryo badana baryadu way ugu disho kuma dhahayo sida dadka qaarkood oo kale bili aadamka oo kale ilaahay bili aadam waxaad horta ilaahay ka baridiin inuu qof bili aadam aad wax ka bariyeen inuu qof bili aadam oo sako neefla Allah wax aad ugu baahanin oo hor istaagan laba jeer hadad ku noqotid wuxuu ku leeyahay tan oo maanta dhibaato badana maxaa dhibaato ma ka baxdamaya maxayna tuugsanaysaa waxaan laakiin ilaahay saas kuma dhahayo ilaahay damo abrid damo urkulos ku noqonayo waay damo ilaahay barid damo uu ku soo dhawaanayo waay bal fiir raxmadaas bal fiiriyo laakiin bili aadamka wandee bariyo walaalo kaala waxaan ii qabo walaalo waxaan isii walaalo kan ama gurigiisa laba jeer ku noqonaysaa the next day waxaan ku leeyahay anada waji ugu tagaysaa ila bili aadam intaas la ka barya qof bili aadam inuu Allah ku dhibaateynin bili aadam war cunuga dhashaba Allah ka dhigay war wax kale iska dhaaf qof aad nolol la qaybsatay iska daa xagga dhiga kan ka soo ka jirkaada Allah ka dhigay inuu qof bili aadam uu Allah ku dhibaateen ilaahay ka bari ducadaas ha iloobina meel ku qorta gabdhow duco kasta aad ducaysanaysiin waxaad ka baridin qof bili aadam inuu ilaahay inaad gacanta u warsano tirada ilaahay hebelo waxisii ilaahay u sheeg every night marka waxyaabo aan ii shaqeeyo aan idin sheega insha Allah time-ku busy waayo subaxdii waa soo kacaysaa kabaha saa u gashatay waxaan ku leeyahay habeenkaa siibaysa aynoo waa ku ogahay anagoo odiga noo jooga waxaan ku leeyahay subaxda saa u gashana habeenkaa kabaha siibnaa adagoo marka meesha jooga ka waran ninkii aabihii booski gale hooyadii banaanka ka soo shaqeynaa guriga cuntidiisa ku sugaysa kala celiskooda ku sugaaya isbitaaladooda isku xiga ku sugaaya uguma sii jiraan gabdhaha ilmaha yaryar isku xigo yaryar ilaahay noo nimceeyay ilaahay siiye kuma jiraan kuwa u soo weynaadeen igana tooda idan taas idan dhil kala gooni waa iyadana waxbay dhil gareynayaan tin bay dhil gareynayaan oo waxaan ku leeyahay oo xaaladooda inay ilaahay og yahay taas marka waxaa laga rabaa inaan maalin يعني wax qaas ku every single day aad ogaatid ilaahay inaad baridid waxa aniga aan juus gareystay waqtiyaasha aan ilaahay baryo waa idin sheega marka iga faa'iideysto oo ma taqaan aan ka faa'iideysto habeenkii marka saxnaysid the only peaceful is that time one marka ilmaha ka saxdaan bahal qabiis ku soo dhufatid sariirta asaa u tagtid ama salaadaada intaad dukatid salaadaada markaad dukatid ama waxaa dhici karta ilmihii joogaan inaad salaad dukatid salaadana 3 rakac oo witriga ha iloobin weliga salaadaada taas ha iloobin weliga taas ayadana weliga ha iloobin 3 rakac oo cishahaada ka bacdi inaad 3 rakac dukatid oo ilaahay ku barid intaas waxaa dhici karta cishaha aad dukanis ilmaha soo jeedaan the time as sariirta tagtid before aad sleep gareynin gacmahaada kor u taag wax walba oo doonaysid oo ilaahay ka bariis ilaahay ka bari xiligaas wax walba oo doonaysid oo biniyati ilaahay weydiisa ilaahay wuu ku siinaa ilaahay waa naxariista waa magaciisana oo quruxda badan ilaahay ugu yeer ilaahay wuu ku siinayaa ilaahay wuu ku siinaa ka ijaabaa ama ha dheeraato ama ha dhawaato marka saxanaysid qof walba cafi everyone aad wax u haysid cafi waxba qofka uma haysto ku dhaniga adigana weliga ahaa dadka calooshooda eberka tahay oo xanaaqa ugu horeeya bas qof walba dabeecadu alla u uumay qof walba dabeecadu leeyahay
the only things oo alxamdulillah ilaahay ugu guuleystay inaan kuleelka ugu horeeya only aan ahay alxamdulillah shukru more than that waxba igama sii sareeyaan markaan saxana inaan qof walba cafiyay qof aan wax u haysta adigoo very clean inaan sirtaas xataa lagu ilaahay barid because ilaahay hadda uqdad halkaas wax ku hayst ilaahay adina ilaahay dadkaas cafiyo kula anoo ku cafinayay because adiga dambiyaad galaysa ilaahay cafisad weydin in lagu cafiso martid adina iska cafi umada iska cafi wada xasidka cafi ilaahay soo hanuuni leh ugu dar number 2 waxaad samaystaa inaad early seexatid number 3 early inaad soo kacdid early seexa early soo kac number 4 waxaa inaad samaysid shaqada markaad iskuulka u dirtid shaqo iraasa iskuulka markaa u dirtid inaad shaqo aadi kartid galabti inaad soo wada gurtid ilmahaada guriga u joogtid weliga ay allaha adoo super mama oo qofna kuu joogo oo adigana kuu joogin habeen ilmahaada ha ka maqnaan shaqo habeen ha aadin waa meelaha ilmaha ay ku halaabaan waa meelahaas oo kale waa oo ilmahaada ay ku siibsanaad ogaan karin waa marka iskuul ka soo noqdaan guriga aad u joog marka halka u fariiso kala celiskoodi iyo quraankoodi iyo wacdigoodi iyo waxoodi ila dhil garaa shaqo waxaad raasataa intii iskuul ka maqan yihiin oo part time aad ku tuurtid 3 o'clock ilmaha 4 ka soo wada baxaan qaara laakiin 3 ka soo baxaan oo high school 3 ka soo baxaan shaqo adiga waxaa ka soo adiga 2 o'clock shaqo adiga 9 gal ila 2 o'clock between isku soo tuuro shantaada biri ama afartaada biri ha ku noqoto ilmahaadana leenkooda ku sugo soo qaada ku high schoolkaada ku middle schoolka isku maray ka soo baxaan dhab ku kala 4 o'clock ka soo baxaan soo qaada gurigaada isku keensa alxamdulillah inta sii socoto soo socotana salliga nabiga iyo subhanallah iyo alxamdulillah tasbiixdaada istanaan istaaban ku noqon ilaahay ku fududeena easy wax walba Allah kaaga dhigaya ilaahay wuxuu kaaga dhigaa easy gabdho because aniga arkay waa waxa soo tijaabiyay anigu ma ihi yani odigay waa ii jooga laakiin cunug yar oo jirin baan aan ma taqaana aan haysta waxaan arkay taasna topic aniga soo diyaaran doona insha Allah waxaan arkay 3 months isbitaal ku jiri oo winter can you imagine you guys of 3 months isbitaal ku jiri oo winter tahay oo ilmo kala different qaar school iyo aad qaarna guriga joogeen aan guriga ku hayst yani tasbiixda si ku caawinaysan ku sheeg everything easy ku noqon waxyaaba stress ku hay free noqonayaan tasbiixa baxs ilaahay bari marka gabdhaha intaas yaan u soo diyaariyay oo walaalahey gabdhaha xamdig ilaahayna badiya kuwa kala kaasi daran fiiri kuwa kala kaasi daran waxa waaye kuwa aan kici karin oo gaariga ku jiraan gaariyaasha oo la riixayo oo gacmaha qabin oo lugaha qabin oo ilmana haystaan oo nin haysana ka waran nin ma haysato curyaana waaye kaasi daran always waxaad fiirsaa qofka adiga ka liita kuwa ka sareeya adiga isku level ma tiimbo waliga ha fiirin qofka ka level sare waliga ha fiirinin kuwa ka daran fiiri qaara indha qabin qaara labada gacmood ka go'an qaara labada lugood ka go'an ilman dhalayaan ilmana haystaan nin haysanin qaara jirin oo sariirta saaran ilma haystaan kuwaas ka sii daran alxamdulillah marba neefta haday kaasaas kaaga bixiso gaarigaada wadanaysid waxaan ku leeyahay asii socoto soo kacaysid oo ilmahaada si kala wadanaysid alxamdulillah alshukrillah waliyaana qof kala dhibaateena ama dhibkiis u istaagana hala saaxibin kuwa ilaahay u hoggaansan kuwa la saaxib ilmahaadana korso maalin walbana diintaadana ha iloobin ducadana ha iloobin in ilmahaas u duceysid midda kale ka iloobay waxay tahay gabar walba iyo wiil walba maalintii 5 minutes Allah ka dhiga 10 minutes Allah ka dhigo kitaabka ilaahay soo qaato quraan akhriya waxa la qofka maalintii soo kaca kitaabka aan qaban waxa la waaqasha qubka
meesha lagu tuuro taraashka ma aragtay oo la dhiga ayaa la mid tahay lagu leeyahay niyadaada geli inaad maalintaas noqotid meesha taraashka lagu tuuro qashinka inaad noqotid adiga niyadaada geli mar walba kitaabka soo qaada gabdhaha hadda moo ayaan idiin soo diyaarinayaa insha allah kaniiniyaashiina fitamiyaashiinana cun fitamiyaashaada always jakare vitamin D aad u jakare because vitamin D markuu ka maqan yahay waxa kugu dhacay tabar darre iyo inaad wareertid iyo inuu xooggaada laciif noqdo cunto fiican cun cunto fiican oo proteinkaada iyo waxa isku dheeli tiran oo mataqaana naftaada u roono because waxa tahay booski aabihi booski hooyada yaa tahay waxa laga rabaa strong inaad noqotid ya nimankana ya calooshooda u shaqaysanayaan oo waxaan ku leeyahay inaan ku war mid single mother ii soo raadi ya wilmahaada remote kula dhagaay ilmahaada caanahooda cabaayana taas barnaamij kale aan ka soo diyaarnaa iska ilaali don't do it sister ha samaynin edu alla ilma yar ku siiye ilmahaada korso cunug kale kugu soo raro hadana kaaga dhaqaajinaa hadana waa adoo taadi ku haystaa mid kale lagugu daray hadana wargaaga si dhaqaajinaa ma fahantiin marka ilmahaada saytaas ugu qofnaha soo dhaxgelin ilmahaas ha kula ilmahaas wax dhiba oo ku boodar gareeya TV-ga ee fiirsanayaan iyo caanahooda wax ku boodar gareeya guriga soo dhigin bila calayk ilaahaygiina bari ilmihiina korsada ilmahana ku qaraadaba wax yar oo kuusan ad ilaahay ku siiyay ilaahay ku xamdi kuwaas korso ha ka soo dhaxgelin ilmaha ka soo dhaxgelin taas topic kale in soo diyaarna dhaxdana xirta taladana ilaahay u dhiibo qof kale ha u dhiibani talada always ilaahay u dhiibo ummadda oo dhan haday ku nicib yihiin ummadda dhan haday ku dhahan maanta hiblaaye waa dhibaataynayna oo ilaahay ku dhiin kuma waxba kaama qaadi karaan haday ku dhaho ummadda dhanna waan ku caawinayna waan ku jecelnahay oo ilaahay ku nicib yahay kuwaas waxba kuma tiraan karaan ilaahay baa wax ka qaadi kara taladaada ilaahay u dhiibo baa macaani toobikeena intaas ayuu ku egyahay waan inoo soo duceeyo idinkana insha allah toobika intaas uu ku ega very strong mom ay wada tiin kulligeen ilaahay inii xafido kulligeen super mom aan soo wada koriyeen aabena waa dhintay most of them gabdhaha ilmaha waxa soo koriyo hooyo cunug kasta nin kasta gabar kasta markaa weydiiso kale hooyo soo korisi aabo waxa dhahay wax yar waa ya hooyooyinkeeni anigana soo korsan aabna ma soo korin kii asagoo noolna wuu ka tagay kii kale waa dhintay marka most of them waxaan soo koriyaan hooyana soo korisi marka alxamdulillah ilaahay waa noo korin doona niyada qeyr u sheeg one day waxa dhaysa boorsada anagoo saa wato ya one day waa noqon doontaa oo ilmihii ku koray madalba gaarigiis wato jaamacadiisa dhameeyay ya oo kulli wada reer wada leeyino ayay lagu dhaha doona niyadaada galiyaan kuleeyahay ka bixiyaan ku dhahay live your life stop worrying bugal dhahay kaas soo raas insha Allah kaas waa inii soo diyaarin doona oo walbahaarka wax dhan ba yacni kaasaas kaaga dhaqaa marka alxamdulillah shukrillah gabdhaheena video waan igu dheeray marka videosh dheer ma jecli insha Allah mo ayaa idin soo diyaarin doona mor fikridan aad idinkan fikrida hoos igu soo qor commentiga share ka iga iloobina like kana ha iga iloobina subscribe kana ha iga iloobina the more ya igu duwanaan kulay saas ba waxaan kulay u soo shubo doona story-ga the more insha Allah khair ya idinka tagay iyo baraka maalintii habeenkii ha idin wacnaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.